Cabdirashiid Xasan Nuur oo loo yaqaano Janan isla markaana wasiirka amniga ee maamulka Jubbaland ayaa loo diiday inuu la kulmo qaar ka tirsan odayaasha iyo nabadoonnada beeshiisa oo Muqdisho u imaaday inay arrintaasi xal u helaan. Odayaasha ka tirsan beesha uu ka soo jeedo wasiir Janan oo muddo badan Muqdisho joogay sidii ay xal uga heli lahaayeen arrintaasi ayay sheegeen xarigga wasiir Janan oo yahay mid afduub ah isla markaana ay qaar ka tirsan xeerliyaashu u sheegeen inuu si xaq darro ah u xiran yahay iyaga oo ay mar hore diideen dacwadiisa. Odayaasha oo xaddii dib ugu laabtay magaalada Doolow ee gobolka Gedo oo ay markii hore ka yimaadeen ayaa sheegay in aysan suurtagelin inay helaan madaxda dowladda Soomaaliya oo ay go'aanadooda kiiska Janan muddadii ay ku sugnaayeen Muqdisho. Qaar ka tirsan odayaasha oo saxaafadda la hadlay ayaa tilmaamay in loo diiday inay arkaan wasiirka amniga ee maamulka Jubbaland si ay xaaladdiisa u ogaadaan. Sidoo kalena waxa ay sheegeen in loo diiday qareenadii u doodi lahaa taas oo ku tilmaameen inay tahay mid aan waafaqsanayn sharciga iyo dastuurka dalka u yaalla. Qaraabada wasiirka waa loo diiday inay booqdaan, sidoo kale qareenadiisa waa loo diiday ma helo daryeel caafimaad. Wax walba waa loo diiday ayuu yiri mid ka mid ah odayaasha oo la hadlay saxaafadda kadib markii uu dib ugu laabtay magaalada Doolow. Xeerlaalinta ayaa wasiir Janan ku soo oogtay dacwad ku saabsan dilal loo geystay dad rayid ah oo ka dhacay qaybo ka mid ah gobolka Gedo oo wasiirka deegaan ahaan ka soo jeedo. Wasiirka oo dhawaan la soo taagay maxkamadda ayaa wax faahfaahin ah laga helin marka laga reebo muuqaal kooban oo telefishinka qaranka ka soo duubay. Wasiirka ayaa xiran muddo ka badan 2 bilood waxaana bishii Sebtembar laga qabtay garoonka diyaaradaha Aadan Cadde markaas oo uu safrayay dalka Itoobiya. Buula Aadan oo ka tirsan saraakiisha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ee gobolka Gedo ayaa wasiir Janan kala soo muuqday maxkamadda ilaa hadda lama shaacin waqtiga ay dhici doonto wajiga labaad ee dhageysiga dacwadda.